heeska macana dhageysanaysan waxa ka soo baxay idaacadda Somali Star TV oo aan ugu barteen ina isniin kastaba afarta galabnimo aan ka sii dayno si live barnaamijkan oo ka shaqeynayo mujtamacana ku nool Suudan ha noqoto suuqa shaqada ama integrationka ama ha noqoto bulsho ahaanta ayaa isniin kastaba Cabdiqaadir Salwa ayaa barnaamijkan in soo diyaar gareeyo oo waxaan leeyahay waad maasantahay Cabdiqaadir shaqada wanaagsan aad ummadda Soomaaliyeed u qabatay oo waliba maalin shaqo ay tahay aad waqtiga fasaxa ka soo qaatay in Soomaalida ay barnaamijkan ay daawadaan isla markaana waxaan hambaliyo oo u celinaynaa Soomaalida dibadaha naga daawado via internetka oo email noo soo diray marka noo soo diray ra'yigiina waa u baahanaa feedback barnaamijyada halkan ka sii dayno barnaamijyada aad rabtaan inaan aan keeno ha noqoto xagga fanka hidaha dhaqanka ha noqoto kultuurka ha noqoto wadankeena hooyo Soomaaliya arrimaha ka dhacayo inaan warbixin iga siino iyo wadamada ku nooshiinba waxyaalaha kala kuluntaan marka nala soo xiriira waa u baahanahay akhbaartiin inaan ogaano Somali Star wuxuu leeyahay Somali Star Hotmail iyo TV Horseedbo labadaba barnaamijkaas ayaa halkaan aan ka sii daynaa waana Opna Kanalan waa idaacad Sweden ka soo baxda caasimadeeda Stockholm si barnaamijka ugu daawateen sabdiga barnaamijkan waxa ila daadeynaa Cabdiqaadir Ibrahim Salwa la yiraahdo halkaan studio waxa martin uga qoraa Soomaaliya oo Soomaali Swedish isla markaana buugaag badan daawacay oo halkan buugaagtiisa aan bariyihii u dambeeyay aan ka wada hadlaynay maadaama uu hadda wadankana la joogo Sweden waa fursad qaali aan jeclaysanay inaan ka faa'iideysano dad badan naga codsadeen in buugaagtan uu maanta iyo week horeba inuu faal ka bixiyo oo noo sheekeeyo buugaagtan qiimaha badan uu qoray si waxaan ka hadli doonaa buugaag kaliya kama hadlay waxaan ka hadlaynaa Soomaalida ku nool wadanka Canada oo haddan Maxamed Sheekh uu joogo inuu noogu horamo labada wadanka Sweden iyo Canada oo dhaqamadooda dadka Soomaalida ku nool horumarkii ku gaareen dhinaca ha noqoto waxbarashada dhinaca ha noqoto suuqa shaqada ha noqoto intaasna barnaamijyada marka barnaamijka aad u xiiso leeyahay marka hadduu ku dhaafana internetka ayaa ka daawan kartaa Somali Star TV marka waxaan rabaa intaan gacmina ku soo dhaweyn marka hore inaan Ibrahim ku soo dhaweeyay Salwa maasantahay Rashid barnaamijka kulay sabtigi dad badan baa kula soo xiriiray weegi horna sidoo kale saa sheegtana Soomaalida halkan fursadda qaaliga oo dadka martida halkan noogu yimaado oo maaragtay booqashada yar ku jooga Sweden inaan halka ku casuno Maxamed Sheekh Xasan wuxuu kamid yahay saa u sheegtay Somali Swedish oo backgroundkiisa oo halkan dad badan ay ka yaqaanaan Sweden oo reer Sweden ayuu ahaa kadibna xagga ayuu wareegay marka fursadaas qaaliga ah ayaan uga faa'iideysanaynaa dadweynahan waxaan kula talinaynaa inay tagaan biblioteekada ee buugta ka deensadaan ama ay la soo xiriiraan maaragtay goobta la geyn doono oo noo sheegi doono hadhow Maxamed Sheekh Xasan si ay uga faa'iideystaan sababtoo ah dadka kale waxay nagu dhaamaan annaga nin walbaba markuu uu Jaanis helo ayuu maaragtay faraaqada uu leeyahay waxa ka faa'iideystaa inuu wax akhristo asaga iyo caruurtiisana uga faa'iideeyo taariikhaha halkan lagu aruuriyayna waqti badan ayaa galay marka ka faa'iideysta ayaan dhiilayaa Soomaalida marka hore qaybta integrationka iyo Rashid waa maasantahay Cabdiqaadir Salwa barnaamijkan oo aan si live ugu soo dirayno Opna Kanalan ayaa saan hor u sheegay waxaan u baahanahay inaan nala socodsiisaan barnaamijka markuu dhamaado kadib aad inoo soo dirtaan SMS meesha lagu soo qoro doono shaashada sida u aragtaan barnaamijkan iyo internetka waa naga daawataan magartay Elburnet iyo johar.com iyo Hirambo intaas waa naga daawan kartaan hadda waxaan ku soo dhaweynayaa qoraagii Soomaali Swedish ka ahay Maxamed Sheekh Xasan oo loo yaqaan gacmo dheere oo aan leeyahay ku soo dhawo barnaamijkeena Mas'ala Rashid marka hore waxaan rabaa intaanan gelin buugaagtaada iyo warbixin inaan naga siisid cariga Canada siba caasimadeeda magaalada weyn Toronto oo Soomaalida ku badan yihiin warbixin naga sii nolosha Soomaalida ay ku haysato meeshaas ha noqoto waxbarashada suuqa shaqada dhalinyaradooda bal warbixin kooban su-aashaas markasta aan isu dhimaado rag fara badan asxaabteed ka mid ah ayaa weydiiya marka horta adduunka meel ka fiican ma jirto waa sidii qofku ula qabsado iyo sida yani xoog u geliyo xagga iyo halkan aad bay kala duwan yihiin xagga waxa weeye waa dal la wada yimid immigrants wey wuxuu dhan marka wax ku riixaya oo ku garbanaya ma jiraan waa adiga iyo raganimadaada iyo kartidaada iyo dadaalkaaga waxa aad kala soo baxdo ayaad leedahay halka waxaa laga yaabaa waxoogaa maaragtay hordo yaab la imaan daraan oo kale iyo maaragtay sembri waa iska jirtaa garanaa waaga halka joognay maaragtay
marka yani dadka la kulanto bak homer iyo firon oo tirada halkaas boligeedan halkaasito kullana yaro barid har naash ka gooti boka naash ka gooti boka iyo saasha akhridan jirtay exactly xagga ma jiro dadka taga kullu waxay haystaan one way ticket waxa loogu talagalay qofku markuu tago inuu soo noqonin waa lagu milmaa waxyaabaha ay kala duwan yihiin halkan waxa Sweden waxa runtan waan jecelahay waxa laga isticmaalaa la janqaadid war waxaaga adigoo haysta halkan wax ka baro afkaaga adoo haysta waan ka tegin afka yani waxa ka kala baro dhaqankaaga adoo haysta ninka tiisa daryeela ayaa kala ku daraa صح xaggana waxa laga isticmaalaa fikrad la yiraahdo assimilation kumilmid waxaaga oo dhan ka tag waxaad tahay Canadian or you're an American citizen saas kala ma garanaysa marka caruurta boqolkiiba 95 xagga ku dhalatay ama iyagoo laba jeer saddex jeer aan geynay Soomaaliya waa ka tagay marka waa sibdarada ugu weyn ee maartay ee jirtay kamid tahay حتى جرب الرسول قري يعني سومالي waa qoomiyadaha ka jirta ugu horeeyay afkooda muddo yar oo gaaban kaga lumaan كل مية لبعض السنة واحد أنا وين صح وكاتاستروف ويعني قوميات كن نيرتا مثل أرض يعني أدبر لو دقيقة هي تشاينيز هو 7 مليون هندي باكستان كمان كسر 1 مليون يبر يوروب الشيوعية هاي وحاول إلى 10 مليون لاتينوز وحاول ساس كلام مركا هذا طبعا ضدكوا يعني بقولش كذا كوا صدر نص مركوا أجنبي مركا قوميات كل واحد ليهن ما يعرف كذا لو كهدية cultural centers بيليهن وحيبا القرى وحيبا الكمداري تلفزيون كذا قوني أنا قوا مدير وقام ما كيسو جتلي أسوارين يعني دبعت ذا إن فائدين بدن باشرة وقناعسية وحاسيتي يعني ضدك حسينية حاجة أنا ورد مركا وكابيتاليست يعني ستيت يعني مركا يعني حاجة business opportunities كاسة رنتي فرصة ضبطا كرسيلو حاجرنا يامي هذا ما قصيدة أي فرق مركز لوكال كريسو دبك أنت محب لا لوكال ولا كده ما نبى إذا فاز كيسة هيلتين سبارت ليست ما تهاي كاسة ما كجرتا بوق نوع عزوكلا أو مركان جدي حاجة مركان ورد مركان عادي نعزوك في عنتها وحب رشدة إن جنريشن جدا ونوصل بحيان إن جامعة تورنتو يعني جامعة يورك يونيفرسيتي سوري وحد كتير حنا بنري لا سطح بقول أرض الصومالية أو بقول كده تدوات اللي قبليه مرة أوه فانتاستيك فانتاستيك قبليه ده هرمركا سماه بقول كده تدوات يعني ويرش درب أوت هالكن سام واي حاجة نوسكوت واي درب أوت قبلها يويرش واحد بدل مركز تبع ويرش أكتر ودري كده سايت قبلها يويرش إسكوسي لو ما أركو markaas kala duwan yihiin caruur fara badan baa naga xiran xabsiyada aad bay u buuxdhaafeen sanadkan kaliya waxaan maleynayaa wiilkii lixaad baa yani laga dilay antarjooyin wiilkiisii ugu dambeeyay waxaan maleynayaa inaad maqasheen maaragtay idaacadaha marka dhib iyo dhaafa waxaa weyn waxaa lagu talagalay qoomiyadda xagga yani taga in ayna soo noqonin oo waxaan garanayaa 2 sano ka hor maraan Stockholm aan imid samarka bisha airportka 30-40 qof hal mar waa dalka u socdo dhoofaya